السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sida aad muuqaalka hordhiciisa aad ka garan kartaan qoraalka wuxuu ku saabsan yahay barnaamij lamaano walba hor yaala ama dhex yaala mar walbana mid walba midka kale uu isweydiinayo uu ku fakrayo goormay dhici doontaa ma dhici doontaa may wax dhici kara ma aha balse mararka qaar way dhacdaa taasi oo mararka qaarna sababtaba in guri hor leh ku burburo guri aan la filanaynin inuusan dhismaynin loo leexiyo ama loo jeediyo. haddaba ninka ragga ah ilaahay afar buu u baneeyay sida diinteyni suuban ay qabto, balse caqabado badan baa hor yaalo wax fudud ma ahan. midda koowaad waxa weeyaan qofka xaaskiisi koowaad ee nolosha ugu horeysa isla soo qaateen ee dad ayaga iskaga horeeyaan guurba inuu ka dhaadhiciyo fahansiiyo meel wax isla dhigaan. waa inuu horta ninka caafimaadkiisa dhammaysan yahay oo nin caafimaadkiisa dhammaystiran uu yahay. midda labaadna waa in qof dhaqaale haysto dhaqaalihiisii uu ku kala maamuli karo reerka hadda u dhisan iyo reerka u dhisan doono. midda saddexaadna waa caafimaad ahaan inuu qof xayi yahay gudan karo waajibaadkiisii ilaahay saaray. midda afaraadna qof aqli leh wax kala maamuli karo, wax isku hayn karo, wax isku soo dhaweyn karo, base aan wax kala fogeynin, waxna isku qarribeyn. haddababa muhiimadda aan ugu danlaya waxa weeyaan xaaskaaga koowaad waa inaad kala hadashaa haddii isbeddel aad doonayso, haddii isbeddelkaasi uu sababi karo in guurkaaga hadda aad ku sugan tahay burbur iyo dhibaato soo wajahayo. ha aadin guur kale cusub, waxaas kale ha raadin. u malayn maayo 95% in ay jiraan gabdha ogolaanaya in lala guursado, laakiin ninka ragga ah aqliga badan xaaskiisi waa in uu kala hadlaa inta uusan go'aan shakhsiyan ah uu qaadan, xaas kala soo guursan, isan gabadha meel kale ka maqlin ama loo soo sheegin, kadibna dhibaatadii isan sii laba jawaarmin, meel la qabtana aan la waayin. haddaba xaaskaaga kugu horeeyo waa noloshaada, waa farxaddaada, waa waddada saxda ah rateen, waa qofkaad isku afgarateen, laakiin sax ma ahan أنا أول شديدني هونوي أفكوبات سماها الشيطان كاربتها. أنا أول شديدني هونوي أفكوبات سماها
ishaydaadi ka aragta wase aragti ka maqan ambaqaad ka noloshay wase aragti ka maqan ambaqaad ka noloshay qofkii nolosheeda kugu aamintay inaad dayacdo qalbi jabiso aad ku qasabto inaysan guur damba aysan nigaysan xiriirka ay soo afjarto gabadhani sidaasi mustaqbal la'aan ugu dhacdo mas-uul ha kaa naqanin ha u horseedin inaad qof farxaddiisa baabayso saa adiga farxaddaada u hagaajisan lahayd marka hore waa isla kaashateen waa isla go'aansateen inaad nolodooda samaysataan wax isku darsataan laakiin aan laba u kala qaadno gabadha haddaad isfahmi weyseen sida saxda ah reerkeed baad u celinaysaa furiinka ilaahay baa inoo soo dejiyo waa xal ummadda lagu kala badbaadinayo laakiin middaanna waan haysan mid kalena waan raadin taada horaba qanaaco fiican kuugu haysan mushaharkeedii sil rabaadan u siinin daryeelideeda siday taadoon u dhammaystirayn inaad wax kale hor raadiso waa wax laga fiican yahay ragga 4 iyo 3 iyo 2 ku fakaraayo waa inaad midda koowaad aad waajibkeeda si sax ah u dhammaystirtaan aad uga soo baxdaan waxaana xaqiiq ah gabadha xaaskaada ah wax walba waad ka dhammaysan kartaa laakiin waxaa muhiim ah haddii aadan xaaskaaga ku qanacsanayn oo aadan ku kalsoonayn oo aadan waxba ka dhaadhicin karin waxba fahansiin karin guur labaad iyo guur saddexaad iyo guur afraad midna ma geli kartid mana samaysan kartid ee qof waxaad tahay nolosha ka dhacay meel uu ku guulaysanayn aysan jirin haddaba muuqaalkan muuqaal la mid ah intaan ku wada kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa caqliga kaa shaqeeyo fakarkan waa muhiim in la isku darsado lana isdhexgeliyo like ii saar subscribe haddaad igu cusubtaana ii saar ii taabo gambaleelkana furo sharena qof kale la wadaag commentina wixii fakarkaaga hoos waad iigu reebi kartaa waan tixgelinayaa waana kaaga soo jawaabaya aad baad u mahadsantihiin akhyaarta sharafta lahow meel walba aad dunida ka joogtaan